السلام عليكم ومحي فيمينيزم halkee ayuu ka soo jeedaa waa maxay macna ahaan maxaa loola jeedaa waa mowduuca maanta aynu halkan ku lafaguri doono ee muuqaalka leeg saar daawade una sii sharkaree saaxiibadaada kale feminism af Soomaali ahaan wuxuu ku noqonayaa naagnimo ama dumarnimo nidaamka naagnimo waxa soo saaray nin lagu magacaabo Charles waqtigu markuu ahaa 1772 taariikhda miilaadiga. Charles waa gaal shuuci ah waana nin Faransi ah oo lagu sheego inuu ahaa social activistic yani qof arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa. inkasta oo feminismka muuqaal ahaan loo eegaysiiyay arrin ku saabsan oo ololaynta xuquuqda haweenka haddana xaqiiq ahaan marka loo fiiriyo waxyaabaha ay dalbanayaan shakhsiyaadka hormuudka u ah ururada feminismka waxay soo baxaysaa inaysan qadiyadaas ahayn mid xuquuq ku saabsan. tusaale waxyaabaha ay ku doodaan dadyoga aaminsan nidaamkani waxay leeyihiin waa in la baabiyaa kala duwanaanshaha u dhaxeeya ragga iyo dumarka ee dabiiciga ah. yani waxay aaminsan yihiin ma jiro wax la yiraahdo rag mana jiraan wax la yiraahdo dumar ee waa hadba qofku waxa uu aamino inuu yahay. waxyaabaha kale ee yaabka badan ee ay ku doodaan waxa kamid ah in luqadaha wax ka bedel lagu sameeyo oo waxay leeyihiin luqaddu waxay xaq siinaysaa ragga waxayna xaq ka qaadaysaa dumarka iyagoo tusaale u soo qaatay kelmadda history. waxay leeyihiin kelmaddan marka laba loo kala qaado waa his iyo history oo af Soomaali ahaan ku noqonaysa sheekadiisa. waxay leeyihiin historyga ha lagu bedelo kelmadda ah her history. cajaa'ibka feminismku intaas kuma eeka oo indhadeegoodu wuxuu gaaray ilaa heer ay codsadaan in diimaha laftirkooda dib u habeyn lagu sameeyo si ay u waafaqaan falsafadda feminismka. waxay leeyihiin marka laga hadlayo ilaahay yaa la odhan ilaahay wuxuu yidhi ee ha la yidhaahdo ilaahay waxay tiri astaghfirullah ammaano allah bal ila fiiri foolxumada iyo fogaanshaha fikirkan aadka u qaabka daran ee lagu marin habaabiyey hablaheena Soomaaliyeed iyadoo loogu soo gabanayo xaq iyo xuquuq ayaa idinka maqan oo aanu idin raadinaynaa. intaas kuma eeka ee waxay taagan yihiin gabdhaha muslimiinta ahi ha tujiyaan ragga muslimiinta ah sida ninka muslimka ahi uu u tujiyo dadka muslimiinta ah. alla weyne isaga ayaa xumaan ka nasahan ee wuxuu dhowray oo karaameeyey xaqa iyo xuquuqda haweenka muslimiinta ah ee dhowrsoon inay gabadhu ragga hortooda foorarsato oo ay shaadh iyo surwaal xidhato oo ay timaha qaawiso waa waxa ay xaqa iyo xuquuqda ku tilmaameen. xaqiiqdii waxaan odhan karnaa indhala'aan ay ruudhi ku dhuuqayaan. ee gabdhaheena Soomaaliyeed ee sharafta iyo karaamada u saaxiibka ahow ayaan la idinku harowsan xaq iyo xuquuq ayaa idinka maqan oo dabadeed ayaan jar laydinka tuurin. muuqaalku intaas ayuu ka egyahay daawade ee leeg saar una sii shargaree saaxiibadaada kale. haddii aad nagu cusub tahayna booqo oo ku soo biir YouTube-keena maxay channel mahadsanid.